magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa markii horeysay laga hirgeliyay sariibad cusub taasoo lagu iibin doono noocyada kala duwan ee hilibka kalluunka. Dhismaha sariibadana nooceedu yahay kii horeeyay ee laga hirgeliyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa ka qayb qaatay hirgelinta dhismaha sariibadani Fire Fishing iyo sidoo kale dawladda hoose degmada Burco. Haddaba munaasabad kooban oo lagu daahfuray furitaanka sariibadani ayaa ka qabsantay gudaha sariibadani waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dawladda hoose degmada Burco, xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco, mas'uuliyiin ka socotay Fire Fishing iyo AU iskaashatada kalluumayaasha magaalada Burco, odayaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Burco. Ugu horreynba waxa halkaasi ka hadlay Yuusuf Cabdilaahi oo ah mas'uul ka tirsan hay'adda Fire Fishing oo hay'adii fulisay dhismaha sariibadani iyo sidoo kale mas'uuliyiin ku hadlaya afka hay'adda AU oo ah hay'adii maalgelisay sariibadani kalluun ee laga hirgeliyay magaalada Burco. u joognaa in taariikh cusub aynu samayno oo magaalada Burco sariibadii horeysay sidoo jaamac ka dhawaajiyay kalluumaysiga aynu maanta buddigayno. Alxamdulillah waxa Ilaahay nagu guuleeyay dadaalkii faraha badnaa ee aynu soo wada bixinay kadib inaynu maanta gaadhno xilli aynu ku haminay inaynu ka goyno xadhig. Sariibadan Burco aynu maanta joognaa waxay qayb ka tahay mashruuc ballaaran oo inaga caawisay ama ay maalgelisay midowga Yurub. Markii aanu Fire Fishing bilownay oo shaqadan hawlgelinay kalluunka berbera soo marayay aad buu u yaraa. maantana bishii waxa lagu xisaabtamaa 100 tan inay soo maraan stationka berbera. 100 tan haddii kiilogii $5 la siiyo $500,000 bishii. marka wax qabadka Fire Fishing waa wax la taaban karo. Waxaan aad ugu faraxsanahay in Fire Fishing ka shaqeysay sidii kalluumaysatada Denmark iyo kalluumaysatada reer Soomaaliland iska kaashan lahaayeen ee loo horumarin lahaa isticmaalka iyo wada shaqeynta kalluumaysatada labada wadan. kalluumaysatada reer Soomaaliland iyo kalluumaysatada reer Denmark inay isbartaan wax weyn bay noo taraysaa. geesta kale iyaguna halkaasi ka hadlay xubnaha ay ka mid yihiin gudoomiyaha iskaashatada kalluumayaasha magaalada Burco iyo sidoo kale marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadani lagaga jiray xadhiga. shaqada wanaagsan ee halka maanta inoo soo gaadhay aan marayno waa heer sare oo wanaagsan oo gobolkii Macaal Burco horumar u ah oo waxtar u ah dadkii shirkad ahaan anoo ku hadlaya afka shirkadda Najax Construction cidii nagala qayb qaadatay back up-ka noo ahayd na caawinaysay nala shaqaysay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga gobolka Togdheer Cabdi Muuse Cabdi Hindi ayaa isaguna ka hadlay muhiimadda ay leedahay inay bulshadu fahanto isticmaalka iyo ka faa'iideysiga kalluunka. khayraadka dabiiciga ee badaheena buuxa inagu ka qaawanahay inuu ka qatanahay in lala soo baxo oo la isticmaalo oo yani nafaqadiisa iyo yani sida caruurta iyo dadka wax u taray la ogaado. xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh ayaa isaguna halkaasi ka hadlay iyagoo bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ku booriyay inay isticmaalaan kalluunka kaas oo waxtar badan u leh bulshada. kawaankan runtii waa kawaan casri ah annaguna runtii sidaanu halkan dhulka u siinay ma aha tanuun meel kasta ama cid kasta oo Burco maal gashanaysa ama Burco wax ku soo kordhinaysa annagu diyaar baan u nahay haddaan nahay maamulkii dawladda hoose iyo goli deegaankaba. maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa halkaasi ku dheeraaday muhiimadda ay sariibadani kalluunku bulshada Togdheer u leedahay iyo faa'iidada isagoo tilmaamay inay dhiirigeliyaan isticmaalka kalluunka. maalintii aanu bilaabaynay halkan ee aanu jeexaynay dhibaato badan baa naga soo martay. qof waliba wax buu ku sheegay qaar baa la hawaleebsaday. maantana waa la arkayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii aanu wadnay inuu wax sax ah. shirkadda Najax ayaan ka tagin ayadana waanu mahad celinaynaa dhismahan quruxda badan ee ay dhistay. waxaanu kaloo idiin sheegaynaa kalluunka waxaa loo baahan yahay maalin walba inaynaan hilib geel iyo hilib adhi doonine inaynu kalluunkaana isticmaalno oo carruurteenna siinana waa loo baahan yahay. ugu dambeyntii maayirka magaalada Burco ayaa xadhiga ka jiray dhismaha sariibadani cusub oo noqon doonta mid horeysay laga hirgeliyay nooceedan oo kala ah. Shaakir Cabdi Axmed, Telefishinka Xorriyo, Burco.